waxbartaan barwaaqo gaarne السلام عليكم جايز كسر دبادة عشرين امتحان أونلاين كأنا قبرت هذا وكلنا نسوق بدنا عشر كأني ما أنت وحنا بلاد جلوكوز سيلو بارا بلاد جلوكوز سيلو بارا أنت أنا أقول قلنا كار عشر كواحد كعسنة هذا جنال كانوا كعصبته فضلا سبسكرايب كنصار جنب لك تسهروا سياد أقول كل أنت مقال ولا بأسوق لنا يوتيوب كنا بلاد جلوكوز محلها بلاد جلوكوز محلها سكر كل عدد جرك بني آدم كلا بدناشة ميتابوليزم كقفك وحيابها أوقاته وأنت كن فودك أوقاته سيد الراشين كربوهيدرات كلا بدناشة جرك وكلا بط أو حلو يقانا وحزيادة ميتابوليزم من الغصة ما نوع لو يقانا سكرت جلوكوز كجرك زيادة هذا نوع سكرت جلوكوز جرك زيادة وحلو يقانا فري جلوكوز سكر صباح فري جلوكوز سكر كاس وحكون لنا جرك بني آدم كأرنت صبح كأنه إنه جرك سكود إنه فري جلوكوز سكر كاس الله دجالمه مقاومة أو جرك بني آدم أو سمينا لدجالك أو سمينا جرك بني آدم وحسودينا دي عمل لو يقان إنسولين كاس هدي أو كبته تروين كفرح بدن أو مرة بأجرك سوقلاي أو لو يقان فري جلوكوز لو يقان هدي أو جرك كبته وحد كان جرك إنه سكع عابين كوسمايا وحيابا جلوكوز لو يقان أرنت صحيح السبب دونتا إنه كولابس كوي ماذا إنسولين كبنكرياس كسودينا هدي بنكرياس كولابس كوي ماذا لا دونتو وحلو يقان إنسولين إنهيبيشن ميكانيزم معنا إنسولين كمان اسمه جرك بنادم كده إنجليز كمان اسمه جاء فري أو جلوكوز فربضنا جرك يكون لنا أرنت سن الحسالة سا إنه جرك كوبته وحلو يقان سكرت ده جرك كوبتنا أرنت وحكو كان سا إنه عذر كوي ما سكره ولا يقان عذر كان عذر آد فربع نوعه صومال هذا صومالنا هنا عذر كان عذر آد أو حنوعها يا دباتوين فربضنا دتك أو آد وين ما دام جركوda كروموسومكooda ama جيناskooda oo aad u yar yahay maadaama age-ka ay ka bateen 40 years old dad ka badan waxay u nugul yihiin inuu cudurkan si sahlan ugu dhaco because of dhicaamanka hormoneska oo jirka soo deynaya waxa ku dhacay very less markuu qofka u dhaxeeyo da'da 18 ilaa 35 years old wuxuu soo deynaa dhicaan 100% oo fit ah wixii ka badan 35 years old dhicaanka jirka oo isku difaaci la waasi yaraana muuqaal ahaan dadka waaweyn dadka yarar marka comparison ku sameeysid jirkooda ka garan kartaa marka waxaan rabnaa inaan keeno blood glucose si loo baara blood glucose waxa loo baara qaabkan muuqaalkan aan ku soo bandhigeeno muuqaalkan la daawo okay waxaan baraad keenaynaa sida loo baaro blood sugar ama blood glucose waxa soo qaadanaysaa bahaladan yar yar oo loogu talagalay uritka soo qaadanay uritka waxaan rabnaa koodhka inta ku qoran 43 ku qoran rabnaa inay inta noogu soo muuqato haddii koodhkaas 43 ku qoran inta noogu soo muuqato uritkayga waa ii saxan yahay برنامجي وإيسحية أفرت سدح كارت كقرن فأكو إيسام مقدر برنامجي وإيسحية دن مركا أنت مرايو وحن بلاوا إن ديك قاضي ديك عن قاضي قفك عن ديك قاضي أما قفك عن ربع أنا فرتيس عن كقاضي ديك أو جدبة فرتان عن كدلاعنا دم وحن بلاوا إن ديك قاضي بالك وحواي حلا استعماله تكلين فور وحيابها أو جرك بن آدم كمخلفات كجر أدرس كأن لجزولي دم هسمينا إن ديك قاضي دن فينكر بريكا سمينا فينكر بريغا سمي دن waxa sameeyna dhiig inta ku shuba waxa kana wuxuu bilaabay inuu ii wareegsanayo dan waxa arki doontaa inuu gaare 125 waxaan ka qaadnay xilliga aan ka qaadnay waxa waaye xilli after meeling raashin markuu cuno kadib ka qaadnay qofka hadii raashin soo cuno laga qaaday waxay gaari 125 gaari yani way badanay yani more than 200 way gaari kartaa ilaa 250 ala xisaabina 150 ilaa waxa la xisaabina laba boqol konton la xisaabana qofka markuu raashin cuno kadib qofka intuu sar raashin cuno koor waxa laga rabaa 100 ilaa 150 meelaas laga rabaa taqriiban approximately different waxa jiro oo jiinaad kala duwan jiro marka waa kaya qofkan wuxuu gaaray 100 waad aragteen resultii ku soo baxay 175 tahay 175 taas wuxuu ku tusinayay in oo glucose ka tastiga reading oo aad akhrisay glucose ka reading kiisa normal value ga female waxa loo qaybiyaa female email malaha wuxuu leeyahay kaliya
after fast iyo before mealing يعني raashinka markaa cuntid kadib iyo raashinka intaada cunin ka hor raashinka markaa cuntid kadib wuxuu noqonaa 150 ilaa iyo 250 miligram per deciliter noqonaa ilaan tirada way sii badanay ilaan glucose far badan isticmaashay reading waa badanaa intaada raashin cunin ka hor wuxuu noqonaa 100 ilaa 150 noqonaa dadka sokorta qaba waxa laga baaraa badanaa inta raashinka cunin ka hor laga fiiriyaa si loo hubiyo jirkooda sokorta inuu kacsan yahay inuu san kacsaneen hadii sokorta oo san kacsaneen wuxuu u baahnaa amount sokor inuu qaato laakiin hadii sokortaada 150 ay ka badan tahay isku day sokorta jirka aad isticmaalaysa inaad iska yareysa si jirkaaga oo noqdo jir nabadgelyo leh hadii kale waxa kugu dhici doona problemaad fara badan destruction of your body kugu dhacay mentality problem ay imaanay qofka hadii sokor markuu dhacdana oo jirkiisa waxyaabo badan ay soo reeto duruufaadka anaga nahay darteed waxay ku saali doontaa inuu hypertension kugu dhaco because of family problem ku qabsanayo family-ka aad isku booqi doontaan ilaa qof sokor qaba waa taqaana problemaad fara badan uu qaba problemaadkaas ay qabto darteed waxay ku keenay inuu kugu bedelo hypertension problem hadii dhiikar kugu dhacan dhiikarka iyo sokorta is qabsadaan waxay arintaas sahli kartaa inuu stroke kugu dhaco maskaxda dhiigaaga furma hadii maskaxda dhiigaaga furma nolol inaad ku sii noolaatid waa adkaa doontaa tastiil lagu baaraa jiro oo maskaxda bahal la geliyo oo xaaja dhiig lagu dhuuqo Soomaali ma yaalo bahal waxa jiro oo maskaxda qofka haduu dhigo stroke ku furmo xididada maskaxda goofid ahaan loo geliyaa waxa la sameeyaa dhiig xididada ku jira maskaxda laga qaadaa waa laga dhuuqaa laakiin Soomaalideena ma naqaan tastigaas waa jira laakiin wali operationkaas nama soo gaarin maadaama aniga aan ku noolnahay Soomaaliya oo san problemaadkaasi tan aan xalin karin waxaan ka codsanayaa inaad iska ilaaliso waxyaabaha oo free sokorta oo naturalka inaad iska ilaaliso si aad ugu badbaadid cudurkan waana maasantiin muuqaaladan ka sii badan idin soo gelin doona hadda channelkeena ku cusubtaa fadlan subscribe saar asxaabta oo channelkeena oo nan aqoonin si gudbi si ay channelkeena u sii bartaan mawduuca isleedan comment gano reeb waana maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh